magacaygu waa cabdikariin cumar macalin. waxaan ahay daadiyaha barnaamijka Hilow oo bishii 2 jeer aad kala socotaan idaacadaha kala ah raadiyo Jowhar, raadiyo Balcad iyo weliba raadiyo Wadani ee magaalada Beledweyne. sidoo kale waxaad daawadayaasha ku nool geyga Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Hirshabelle ay nagala socdaan barta Facebook aynu ku leenahay ee Hilow. Hilow waa barnaamij dood wadaag ah oo aan diiradda ku saarno xalinta khilaafaadka, isbedelka cimilada, nabadeynta, fatahaadaha, ka hortagga muqaadaraadka iyo waxyaabo kale oo aan isleenahay bulshada laga maarmaan ay u tahay. Hilow oo ah barnaamij bishii 2 jeer ka baxa idaacadaha aan soo sheegnay ayaa waxaa laga dhageystaa riwaayado xiiso badan oo ay geliyaan laba ka tirsan shabakada nabadeynta Hirshabelle, gaar ahaan Cabduqaadir Cabdulaahi Colaad iyo weliba Ayaan Axmed Cali oo ku kala matalaya Hanad iyo Hibo. riwaayadaasi ayaa ah mid tusaale dhab ah u noqotay shacab fara badan oo ku taxan barnaamijka Hilow. sababta ugu weyn ee barnaamijkan loo abuuray ayaa ah in shacabka Hirshabelle lagu fahamsiiyo dhibaatooyinka khilaafka leeyahay iyo weliba sidii ay markaasi ay u ogaan lahaayeen khataraha isbedelka cimilada caalamka farabacaan ku haya, Soomaaliyana ay aad ugu nugushahay. Hilow oo 2 sano lasoo dhaafay si toos ah shacabka ku nool Hirshabelle ay kala socdeen idaacadaha ku kala yaala magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Beledweyne ayaan sahan aan sameynay ku ogaanay in dhageystayaasha aad u fara badan ay ku qanacsan yihiin iyagoo riwaayada Hanad iyo Hibo ka dhageystaan tusaalooyin iyo talooyin wax ku ool aad u fara badan. waxaa hubaal ah in beelo walaalaha oo dhowr jeer khilaaf ku dhex maray wacyigelin ay u noqotay riwaayadaas kadib markii ay dhageysteen riwaayada Hilow iyo guud ahaan barnaamijka intiisa kaleba. Hilow muddada uu socday waxa uu sidoo kale digniino badan uu ka bixiyay fatahaadaha soo noqnoqday ee webiga Shabeelle, iyadoo dadweyne aad u fara badan oo ku nool hareeraha webiga jiinkiisa ay digniinahaasi qaateen, kuwaasi oo ka shaqeey fatahaada webiga Shabeelle si dhibaato aysan ugu soo gaarin. mas-uuliyiin kala duwan iyo aqoon-yahano aan ku martiqaadno dhowr jeer ayaa codsaday in barnaamijka la sii wado si bulshada ay wax badan ugu faa'iideystaan. xaqiiqdii tan iyo markii la abuuray barnaamijka Hilow wuxuu noqday barnaamij ummadda Soomaaliyeed ay aad u tixgeliyaan uguna taxan yihiin, gaar ahaan kuwa Hirshabelle. dadweyne aad u fara badan oo ku nool dalka dibaddiisa kuwaasi oo kala socda barnaamijka Hilow barta Facebook aynu ku leenahay ayaa u arka barnaamijkan mid qiimo weyn u leh bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Hirshabelle, iyagoo codsaday in bulshada loo sii baahiyo xilliyo kala duwan maadaama bishii hadda 2 jeer uu baxo. waxaan jecelnahay inaan halkan ugu mahadcelino dhammaan dhageystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka Hilow, kuwaasi oo falcelin muuqata ka sameeyey barta bulshada aynu ku leenahay ee Hilow. Hilow waa barnaamij aan wada hamuun qabno.